But you might have seen the article about some Minnesota is the largest taxpayer of Al-Shabaab terrorist group in Somalia. Yeah, this is the Rufo article Right. that I just mentioned. Exactly. That they're controlling the Hawala network or skimming the Hawala network. Yeah, and you know who's getting the money? Like like you said, you carry $400 cash, you go to the mosque, you go to that specific, area where you give the guy money, and it's $20, it's $6 each 100. So each 100 you're sending, that you gotta give $6. Okay, so a 6%. He's taking a 6% vig on your money home. Yeah. And in your case, I guess if you're sending money to your السلام عليكم ورحمة الله وبركاته خيارة يوتيوب كي كحران كلين ونيدي السلام نيمل وبعد شوكتي داوديال كوسو دوادا channel كان عصب سبسكرايب صار لايك شير مال دارو غارسي ان فيديو كان لو وداك دمان أصحاب نينك اللي يدادو Somali cowboy واجاجوسكو ugu weyn bulshadana ku dhex jira ninkan waagi hore wuxuu ka hadli jiray lottery wuxuu soo jeedin jiray qaabka si loo dalbado lotteryga markii damana wuxuu iska dhigay wadani imika waxa noo tustay inaad tahay jaajuus inuu yahay munaafiq akbar anigu markii hore waaba oga xiligii ku Xuseen qarxiyay markuu yiri kaniisad buu ka shaqeynay diinta islaamka uu gafay wuxuu yiri Jesus baan jecelahay he's in my heart Jesus in my heart buu ku yiri bal ka waran waxaas nabi Ciise عليه السلام وجعلنا وجدديس wax kale buu ahaa nin muslim sheeganaya hadana nin gaal oo awowgiisa la naaray intuu u tagay inta Soomaali uu nacib yahay ugu sheekeeyay war al-shabaab lacagtooda waxay ka helayeen diasporada Mareykan ku nool war al-shabaab lacagtooda waxay ka helayeen USA iyo UAE wala og yahay waxan information public ba weeyaan USAID هذا تكتين أفكو قرتين إني 40 مليون a week ودرين الشباب وحاس أورم مايو because وحو دوانا يا دانا تراب إنو سجودو وحو دوانا يا داد إنو نعم ليو إنو يدهدو ورانو وافي عناهي سومالا دا كار يوحونيهين what does this do for you محو كوسو كردينايا وحبا هالي ميسين ننكا حدانك كوم حسمينايو ولا يهي مساجدكي bay tagayaan xagaas bay lacag ka helayaan hadanana tax bay qaadanayaan dadka kale tax bay ka qaadanayaan leeyahay war Soomaalidu waa inay integration waa inay iska galaan dadka waa inay isku dhex milmaan dhaqankoodii iyo diintooda waa inay ka tagaan waxba kama faa'iideysid wuu ku taagan yahay hadanana waxa jirta dad badan oo aan waxba kala og oo iska taageeraya ninkan hata wuxuu kugu tusay inuu yahay cadowgaaga koobaan inuu kaaga soo horjeedo ya adiga noloshaada iyo horumarkaaga inuu kaaga soo horjeedo haduu wadan yahay wuxuu dalkiisa ku noqon waayay waa munaafiq ninkan faalo ka wada laabta nin soo kordinaya waa enemigaaga koobaad anahay qabiilaystay manihi Soomaali ma jecelahay in the future waxay iska dhigayeen inay dadka caawinayeen laakiinse dad 40 qof haday dambi wada galaan macnaha ma Soomaalidu oo dhan inay wada dambiilayaal yihiin taas waa taa ninkan uu suurud xumeynaya Soomaalida reputation ko waxay ka qabanayaan dalka ala yaaway muxuu waxaan oo dhan u badheeday nin gaal podcastkiisa wuxuu isleeyahay oo ninka gaalka hadaan platform siiyo uu xushmeenay uu soo dhaweynaya ima faquuqayo waa ninka gaalka kulligiina same Soomaalida oo dhan uu ku soo horjeeda you have to understand khayzooga waxa ka socday uma jeedid shacabka Soomaaliyeed la dulmeynayo oo waxa weeyaan shacigooda la baaray la musaafurinayo madaafiic badan ba siinaysa waxa oranaysa ha wala xun yihiin Soomaalida cayr bay qaataan ma shaqaystaan you're adding more fuel to the fire and gaalada clipkaagii bay qaadanayaan wala murmursiyoonayaan alooda ba ka qashifay you're not safe this will backfire on you you will regret that interview that you did with this man deserves to come up on here give us all of the Somali community an apology 100% we will not allow shishe kalkal gala cha'ay Somalis like you to be platform
ninkan follow ka laab qof dantaadii ka shaqaynaya maaha wuxuu doonayaa Soomaalida inay wada baabiyaan isku gubaan adanana gaal inuu sujuudo ninkan muslim lama oran karo Soomaali inuu jecel yahay lama oran karo wuxuu yahay lama garanay waa munaafiq laba wajiile mana wajh cusub gudaafadan xaraamta loo waayo qurankana jaraysan la tag meesha waryaa yaa lagu wasin bijaas naga